بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل ليس كمثله شيء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه. أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة حتى أتاه اليقين. أما بعد، walaalayaal sidii aan ku ballansanaynba waa axaddii aan islahayn macnii wixii aan ka hadlaynay oo waxyaalihii ay aaminsanaayeen nimankan wahaabiyada ah qaybteedii ugu dambeysay baan rabnaa inaan maanta aan ka hadalno insha allahu tacaala. kadibna waxaan ka hadli doonaa caqiidada saxda ah baan insha allahu tacaala yaan ka hadli doonaa. kitaabka ugu horeeya aan maanta geli doonno waxaa weeye kitaabka lagu magacaabo Macaarijul Qubuul lixaafidil xakami, ninka la yiraahdo oo uu leeyahay baa macnaha maanta kitaabka noogu horeeya ah. waxa ku suganna kolley dabcan waa wax macnihii jirku uu ka jircoodo oo xaq ka fog. waad arki doontaan qof islaam ah ama diin ama iimaan in yarba ha ahaatee qalbigiisu ku jiro wuxuu aamina maaha. wa fii hada alkitaabi, kitaabkan saxiifadda 235 waxaa ku sugan ina allaha yanzilu ila samaa'i dunyaa, ilaahay wuxuu u soo degahayaa samada adduunyada ah ayuu u soo degayaa. walahu fii kulli samaa'in, samo kastana ilaahay wuxuu ku leeyahay kursiyun, kursi buu ku leeyahay. fa-idaa nasala ila samaa'i dunyaa, haddii samada adduunyada uu u soo dego, jalasa calaa kursiyihi, kursigiisuu ku fadhiisanhayaa. humma madda saacayhi, labadiisi lugood oo dhudhun buu saas u fidinhayaa. fa-idaa kaana cinda subxi, waaga markii uu baryo xilligaa ayadana irtafaca, kor buu noqonhayaa. wa jalasa calaa kursiyihi, kursigiisuu ku fadhiisanayaa. wa haadaa mustaxiilun, waxa mustaxiil ahoo aan sharciga aanan gelin weeye, mana bannaana. diinna ma ahan, qof islaam ahoo islaamnimo sheeganayna wuxuu ku hadla ma ahan. macnaha waxaan khuraafaadka ah ayaa ka buuxa kutubtooda, mana bannaana wey. marka kitaabkan Macaarijul Qubuul baa la yidhaahdaa. saxiifaddina waa 235 sidaan hadda usoo sheegnayba. waxaas ayaa ku qoran wey. qof islaama wax uu dhihi karo ama ma ahan wey. sidoo kale macnihi wuxuu leeyahay saxiifaddan kale oo macnihii 236 laftigeedu wuxuu ku leeyahay ilaahay saacadda labaad uu fiirinayaa waxa uu markaas ilaahay ama uu ku sugan yahay ama uu eegahayaa macnaha fii jannati cadnin, wahiya maskanuhu alladii yaskunu, maskanka iyo meesha uu degan yahay wayuu leeyahay. waxaasu diin ma ahan, yaanan diin lagaaga dhigin caqiidadan wahaabiyada. saxiifadda kale waa boobsiinaynaa. saxiifadda kale oo 78 ayadana waxaa ku qoran ina alkursiya aladii wasaca asamaawaati waalard la mowdicu qadamay. waxaasu subxaana allah, ilaahay baa ka nasahan. wuxuu leeyahay kursiga samada iyo ardada ka waasicoo ka weyn, waxa uu lugihiisu meesha uu ilaahay dhigahayo wey. waxaasna wax diina ama qof iimaan leh uu dhaho ma ahan wey. wax rasuulka calayhi salaatu wasalaam ama asxaabtii ama taabici ama taabici ama salaf iyo khalaf wax ka sugnaadayna maaha. waa wax jeebkooda ah, meelay kala yimaadeen lama yaqaan wey. kitaabkan kale oo labaad haddii aan galno, kitaabu sunna liabi bakar cumar ibna abi caasim shaybaani. kitaabka asagaana saxiifadda 249 waxaa ku qoran lamaa qada allaahu khalqahu ilaahay markuu khalqigiisa uu abuuro dhammaystiro
istalqaa waa jeegaysanaya yacni horena annaga usoo marnay ilaahay waa daalaa waa yagi lahaa meeshaan marka tiibay ka wadaanoo ilaahay markii uu khalqigiisii abuuray buu daalayoo macnihii jeegajeego saas u tuuray waa jeegajeego uma wadaca waa dejiyey ixdaa rijlayhi labadiisa lugood buu cala alukhraa tan kale midaas kala saaray labada lugood buu isa dul saartay si waa garanaysaa qof markuu jeegajeego u seexdo oo inta daalo saas isu tuuro labada lugood oo saas isu saara sidaasoo kaleu ilaahay yeelay buu leeyahay wa haadaa mustaxiilun waa wax mustaxiila oo yacni haddii alla kuuranayo qofkii aaminana ay tahay kufri iyo dalaal weeye waa baadi iyo gaalnimo weeye qofkii waxaa aamina mana bannaana waa xaaraam weeye in sidaas la aamino ilaahay subxaanahu watacaala khalqiga umeeka khalqigana waa laysa ka midlihi shay wax u dhigma oo ilaahay la mida ma jiraan waay marka taasoo kale in caqligaaga uu kugu soo dhaco ama aamintid ma ahan haddii iimaan kugu jiro markaa kitaabkan kale kayfa nafhamu tawxiid waxaan u bobsiinaya waxa waaye iyadoo macnihii howlo badan ay ii yaalaan iyo waxaa isku darsamay macni marka aan akhrinayno waqtiga saan u leeyahay 20 daqiiqo kadhig baan waxays arkaa iyadoo ama hal saac ay ku dhowaato marka cafwan gadaal noqda macnihii inaan soo gaabiyo waa jeclahay marka way nala tagtaa sharaxa faraha badanna waan ka joojinayaa ma garat marka kitaabka saddexaad macnaha wuxuu leeyahay kayfa nafhu tawxiid li Maxamed Axmed biashmiyahu ninkaas baa macnaha iska leh asagana wuxuu yiraahday fi hadal kitaab wuxuu ku leeyahay saxiifada 11 waxa uu ku leeyahay waa bogga 11 asagoo ka hadlayo iimaanul mushrikiina billah inay mushrikiintu ilaahay ay rumaysan yihiin asagoo raba inuu ka hadlo waqad kaana haa'ulaa'i almushrikuuna yu'minuuna billahi iimaanan jaaziman ويوحدونه في الربوبية توحيدا كاملا هكذا كان إيمان المشركين الأولين بربهم لغلها وهو معنيه كل وذلك دونتان وإذين شيكي وحولي هاي وقد كان هؤلاء المشركون يؤمنون بالله مشركين إلهي بي رمين هايين بو كل هاي إيمانا جازما إيمان قعان وحكجر ملوركاس يعني وحوي وكذب ويوحدونه وحنا ويوحدايانو إلهي بوي كليلايانو في الربوبية رب النبدا إلهي وكليلايان توحيدا ولبا كاملا هو توحيد ضميسترا يعني إلهي رميسان توحيد ضميسترا وكاملا بيبوليه ساسو انت أقروا وهكذا كان إيمان المشركين الأولين مشركين تهرنا سداسو أها أي من سنايين بربهم وي وهكذا كانوا يوحدونه في الربوبية سداس أي رب النمذن أوحيد جيران وهذا التوحيد الخالص توحيد كان خالص كاهو قالدان أي هيستان يا قالدي هوري أي هيستين بوليه الذي توحيد كاسو يقصر أي كقابين هيان دونه اليوم ما أنت أي كقابين هيان توحيد القبوريين كو قبوريين تأه وقبر عابده ديا قبر عابده معيد قبر عابده جرت دادك مؤمنين تبو مكاهضا ياو ومن عباد الأولياء الغلام أولياء كوا عابدة وهذا افتراء وبهتان على الله وعلى أوليائه وعلى المسلمين معني المسلمين يا إلهي أولياء يسال لقبين أبورنا هيا وح أولياء عابدة مجرو وح قبر عابدة مجرو وحن إلهي كاهين ولا عابدة هيا مجرو مركا أجيتك ورابو حواي إنو يرى هذا ضدك مؤمنين تاع وإلهي كعب صنايو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قاطي أيا معنه قال أبو روائنو كادا دعيو كقاتسيو هذه مركزي أديشدوي مركز الوجلية إنتاجنا وقود ماتي إيمانك هو إبروي قف مسلمة أو مؤمنة أو موحدة هدي آد إنه قال يهي ولما قال كا وكاجدو يهي سيدا قالان كاركي دونه أي أمين زيهن وأرين خطرت هذا له هو وأنا أرين خطر هو قفك مسلم كان هذا قال لما كوجبتي سيد رسولك عليه الصلاة والسلام شيء قفك هدي قفك كلا قال لما وكوجمه هدي قفك الوجمي يعني وحق اللي سيكون هدي كلنا كيد هاي أو قائل كهذا يكون قانسا مركواس كجرنا كلمة مال إلا دعي سماهن قال لما الإسكتورو اللي لا ذهب الواقال محزالا ما marka halkan waxa ka ogaanaysaa mushrikiintii iimaan iyo tawxiid iyo rabbi inay aaminsan yihiin ay wanaagsan yihiin ay tawxiid sax ah dhab haystaan buu inta ka qire dhinaca kalena muxuu qirayaa
dadka mu'miniinta oo muslimiinta oo muwaxidiinta inay gaala yihiin waa dadkan ahlu sunnati wal jamaaca ujeedka uu rabo waa kaa wey waxaasaa meeshaan ku qoran way sidoo kale waxaad la yaabtid baad arki doontaaye meeshaan la yidhaah yacni abulahab iyo abujahal labadoodaasba haddana waxay u qiraayaan towxiid saxiifadda 12 oo kitaabkan kayfa nafhamu towxiid ah sidee towxiidka u fahanaa buu rabaa yacni yaa ku qoran ciwaankooda waa basaas yacni marka wuxuu leeyahay meeshaan abujahal wa abulahab waman calaa diinihim min almushrikiina kaanuu yu'minuuna billahi alula hada kidbun wa iftiraa macnihii waxa uu yidhaahday abujahal iyo abulahab waman kaana calaa diinihim wixii diinkooda yacni aaminsanaa oo raacsanaa oo min almushrikiina yacni waa kufaaru quraysh iyo wixii la midka ah ba wuxuu leeyahay kaanuu yu'minuuna billah ilaahay bay rumaysanaayeen wax ka jira male taas waa been wey waana kidbi wey aayadaha qur-aanka kariimka ahana diidi doono insha allahu tacaala aan sheegi doono markaas inay aayadda ilaahay oo soo dejiya qur-aanka ku diidayaan idiin sheegi doonaa wayuxiduunahu ilaahay bay keli yeelhayaan bay dhaheen fi rububiyati rabbinimaday ku keli yeelhayaan khaaliqan inuu yahay ilaahay mid wax abuura raasiqan ilaahay inuu yahay mid wax irsaaqa muxyiyan ilaahay inuu yahay mid nooleeya mumiitan ilaahay inuu yahay mid dila daaran ilaahay mid wax dhiba inuu yahay naafican wax anfacay inuu yahay laa yushrikuunahu ilaahay umay shariig yeelayn fii daalika shay-an intaasba ilaahay umay shariig yeelayn intaas markuu yidhi ba wuxuu yidhahdaa cajiibun wa gariibun wax cajiibah lala yaabo waxaa ah an yakuuna abujahal wa abulahab akharu tawxiidan lilaahi abujahal iyo abulahab inuu towxiidka kaga badan yihiin oo uga dhow yihiin oo akhlasa iimaanan bihi ilaahay kuwa xagga iimaanka uga khalisid ugu baraxid og oo yacni iimaankooda iimaan barax la yacni qolada ah oo ay kaga wanaagsan yihiin min haaulaa'i almu'miniin muslimiintaasi uga wanaagsan yihiin aladiina yaquuluuna lagulaha laa ilaaha illaa muxameda rasuulullah hada kidbun wa iftiraa aayadda qur-aanka aan soo qaadanno aayadda ilaahay wuxuu leeyahay waqaaluu maa hiya ilaa xayaatuna addunyaa namuutu wanaxyaa wamaa yuhlikunaa ila addahr wamaa lahum bidalika min cilmin in hum ilaa yadunnuun baa ilaah yidhi aayaddan qur-aanka kariimka waxa uu sheegayaan inay khuraafaad iyo waxba ka jirin aayaddan ilaahay wuxuu yidhi waqaaluu waxay yidhaahdeen kufaartii yacni gaaladii maa hiya maba ahan noloshu ilaa xayaatuna dunyaa noloshaan adduunyo dhow ma ahan namuutu waan dhimanaynaa wanaxyaa waan noolaanaynaa wamaa yuhlikunaa namana dilahayo ila dahru zamanka ma ahane meeshaan marka namuutu wanaxyaa hadda geerida iyo nolosha horayso geerida ka dambaysa marka hadda taqdiimkan iyo ta'khiirkan macnaha waxa weeye namuutu waan dhimanaynaa naxnu annaga kufaarta hadda joogna waan dhimanaynaa wanaxyaa waan noolaanaynaa macnaha waxa weeye awlaadanadaa noolaanayso oo macnaha siday aaminsan yihiin ama annagu Soomaali ha ahaato ama carabtuba ha ahaato waxaa la aaminaa ninku marka uu dhinto hadduu awlaad ka tago micnihiis waxa weeye magaciisa waa raagaya waa la sheegayaa gadaashiisa la sheegayaa marka namuutu waan dhimanaynaa wanaxyaa bay leeyihin macnihii dhimashadan macnahaas waa lagu fasiraa macno kaloo taqdiim iyo ta'khiirna waa lagu fasiraya carab inay yidhaahdaan qumtu waqacadtu oo kale macnaha qumtu waqacadtu macnihii istaagga maxaa ka horeeya qucuud baa ka horeeya marka qumtu waqacadtu waa sidaas ay carabtu isku kala hormarisee wax micnaha oo kale weyna kuma dhisna kuma sugna meeshaan oo dhiba marka namuutu waan dhimanaynaa wanaxyaa waan noolaanaynaa wamaa yuhlikunaa ila dahr zamanka maahan wax kale lama halaagayo marka dahriga macnaha cumriga way ka wadaan dahriga waxay ka wadaan leyl iyo habeenkana way ka wadaan intaasaa na dilaysay leeyihin marka dadkii aaminsanaa oo ictiqaadkoodu ahaa zamanka inuu dilahayo noolaynahayo inay maanta la yidhaahdo ilaahay bay towxiid u khallisayaan haadaa iftiraa wa buhtaan wey wax ka jira male wey wamaa lahum bidalika min cilmin arrintaasna cilmi uguma sugnaanin in hum ilaa yadunnuun way malaynayaan waa malahooda khalligaabaa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala aayaddan kaleo qur-aanka ku tusinayso inay kufaaru quraysh iyo wixii la midkahay gaaladaha aysan iimaan lahayn oo hal iimaan uusan lahayn ilaahay wuxuu yidhaahday waidaa qiila lahum isjuduu liraxmaan allaha raxmaanka u sujuuda markii la yidhaahda qaaluu wamaa raxmaan raxmaan maxaa waaye maxuu yahay raxmaanku sidaasay lahayeen raxmaan muxuu yahay waa maxay raxmaan buu yahay anasjudu limaa ta'murunaa waxa aadna amraysid miyaan u sujuudaynaa sidaasay leeyihin ma sidaasaan u sujuudnaa waxaadna amartid inaan u sujuudno raxmaankaa sheegaysid muxuu yahay
wazaadahum nufuura fogaansho iyo yacni carar baa intaasna u siyaadinaysaa dadka iimaankooda noocaas ahaa oo kufaarta ahaa oo gaalada ahaa oo caqiidada ka fogaa baa maanta waxaa lagu leeyahay muwaxidiin bay ahaayeen diinkay waxidi jireen waxayna kaga ficnaayeen macnaha dadka hadda jooga oo macnaha looga jeeda maxay tahay dadka ahlu sunnati wal jamaaca soofiyada iyo wixii la midka ah alfiir waxaas kidbiga iyo iftiraa sidaasuu lahaa marka waa tawxiid wuxuu yidhahda haddaan idinkugu soo celiyo abu jahl wa abu lahab waman calaa diinihim min almushrikiin abu jahl iyo abu lahab oon ogaanay tabbat yadaa abi lahabin wa tabba maa agnaa canhu maaluhu wamaa kasab sayaslaa naaran daata lahab wamra'atu xamaalat alxadab fii jiidiha xablun min masad ilaahay qofkii oo aayadda qur-aanka uu ku hidaariyey ouna ku caayay oo weliba uu ku sheegay inuu yacni cadaaban yahay oo ilaahay uu cadaabahayo baa wuxuu leeyahay iimaan buu leeyahay iimaanka uu leeyahay xaggee ka yimid marka iimaanka uu leeyahay xaggee ka yimid marka dadka noocaas weeye ictiqaadkooda dadka muslimiintana gaalo ka dhigahayaan ayaguna dad islaama iska dhigahayaan yuwaxiduuna waxay yidhahdeen marka abu lahab wa abu jahl waman calaa diinihim min almushrikiina kaanuu yu'minuuna billah ilaahay bay rumaynahayeen lagulaha oo ay rumaysnaayeen wayuwaxiduunahu ilaahay bay keli yeelahayeen fi rububiyati rabbinimada bay u keli yeelahayeen khaaliqan inuu yahay mid ilaahay wax abuura raasiqan inuu yahay ilaahay mid irsaaqa muxyiyan mid nooleeya iyo mumiitan mid dila hadda maxaan soo sheegnay wamaa yuhlikanaa ila dahra inay lahaayeen zaman ma ahna wax kale lama dilaayaan xaggee bay ka aaminsanaayen ilaahay inuu noolaynayo ilaahay dilaayo aayaddii qur-aanka ahayd baaba diidaysaba marka nimanka noocaas horta saas wey daaran wa naafican inuu ilaahay wax dhibo waxna anfaco ayay macnihii haddii alla kuuran yahay bay rumaysnaayeen bay leeyahan wey walaa yushrikuuna ergan fiiri beenta iyo kidbiga walaa yushrikuunahu ilaahay umay shariig yeelen fii daalika shay-an arin waxna umaysan shariig yeelen ilaahay soo been maa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiiskiisa muxuu ahaa yacni umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu ullah macnii waxaa lay amray buu rasuulka inaan la dagaalamo gaalada iyo wax kasta oo diinka ka soo horjeeda inaan la diriro xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah ilaahay mooye ilaah kale inuusan jirin inta ay ka aaminaan waan la dirirhayaa buu yidha oo ay rumeeyaan aniguna inaan rasuulkiisa ahay halkaana waxay ahayn muwaxidiin rububiyadiisa yacni aaminsan bay ku leeyihin waa taqsiimka tawxiidka ay rabaan islaamka inay ku baabi'iyaan ujeedka ay rabaan wey kaas weeye wax kale maaha oo tawxiidka tawxiid aluluuhiya iyo tawxiid arububiya iyo tawxiid asmaa wa sifaat bay u bixiyeen taqsiimkan ma ka imaanin yacni rasuulka naga calayhi salaatu wasalaam oo tawxiidku waa hal wey ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna maxamedan rasuulullah wax tawxiid yacni la kala qaybinaya midna ma jiraan ilaahay tawxiidkiisu waa hal tawxiidkao dhanna waa hal waxaan la qaybinayo ujeeddaa laga leeyahayo waxaa la rabaa qoladan rububiya ay aaminsan yihiin qoladaana uluhiya aaminsan yihiin qoladaana asmaa wa sifaat bay ka soo horjeedaan ujeeddo la rabo dadka islaamka in lagu dhibaateeyo wey taa mar gooniyahan ka hadlaynaa ee macnii ujeedkanagu hadda wuxuu ahaa inaan caddayno wax meeshooda ku qorano qurankaa marka wuxuu sii raacshay cajiibun wa qariibun wax cajiib oo lala yaabaa waxay tahay lagulaha an yakuuna abujahl iyo wa abulahab iyo abujahl inay ahaadaan akharu tawxiidan lilaahi kuwa ilaahay rumayn dhab ahoo ilaahay la rumeeyo kuwa ka badan wa akhlasu kaga barax oo yacni kaga khallisanoo iimaanan xagga iimaanka bihi ilaahay la rumaynayo iimaanka xaggiisa wax uga wanaagsan ma jiraan min haa-ulaa'i almuslimiina muslimiintaas ayaa uga wanaagsan walaha aladiina kuwaasoo yaquuluuna dhahay laa ilaaha ila allah muxamedan rasuulullah laa ilaha illa muxamedan rasuulullah kuwa dhahaya iimaan ma hayaano iimaanka abujahl iyo abulahab iyo qolada diinkooda aaminsan baa yacni yaa iimaan ku wanaagsanoo kaga fiican buu leeyahy waxaasay diin ay yacni wahaabiyo ay aaminsan yihiin wey oo kutubtooda ka buuxda way qurunkaa marka haddii inta aan uga baxo kitaabkan kale oon soo gelahay waxaa la dhahaa kitaabu tawxiid lisaalix bin fawsaan nin la yidhaahdaa iskale asagana wa fii haada alkitaabi saxiifadda 163 iyo 164 waxaa ku qoran fatabaruku bilamaakin waalaathaar iyo walashkhaas axyaaan wa amwaatan laa yajuusu buu yidha in la barakaysto amaakinta meelaha boosaska meelaha wanaagsan makaanooyinka wanaagsan iyo raadadka yacni dadkii wanaagsanaa raadkoodii iyo macnihii waxay aathaaraho ay ka tageen iyo yacni ashkhaas wanaagsan oo ilaahay xaggiisa ku wanaagsan ama ha noolaada ama ha dhintaane maba bannaanuu yidhi tabarugna waad garanaysaa diinku wuxuu ku yahay shay mashruuca
weeyaan xataa iska daagtaase tabaruga macnihii xataa wuxuu ka mid yahay qayb ka mid a ilaahay shacaa'irta islaamku geliyaba yacni in amaakintii la weyneeyo oo dadkii hore meeshii ay yacni haddii waa la kori afcaashii ay sameeyeen la weyneeyo wax weyn laga dhigo waxayba ka mid tahay yacni min shacaa'ir illaah ilaahay shacaa'irtiisay ka mid tahay oo maxaa ka mid a haajir hadda nebi maysan ahayn nebi xaaskiisay ahayd waa aragtay waa garanaysaa safa yacni marwa iyo safa dhexdooda 7 jeer oo la ordahaya macnaha waa 7 jeer oo marka ay biyo raadinaysay oo ordaysay waa oo nabiyullaahi ismaaciil oo yiriisa ay haysada markaa oo biyihii iyo baadkii wixii dhan ay ka go'een oo orodkaasi hadba xagga korayso buurta soo korayso xagga sii korayso soo korayso yacni waa la su'aal nooleeyo diinka lagu xuso lagu nooleey ma aragtaa amaakinta meesha nabiyullaahi maqaam ibraahim waa aragtaa waa meeshii uu ku istaagay nabiyullaahi ibraahim waxaasoo dhan waa amaakin waxaa ka mid ah amaakinta nabiyullaahi maxamed markii la dheelminayay nebi ciise meesha uu ku dhashay xataa waxaa la yidhahda ma taqaan meeshaan mayo waa nabiyullaahi ciise meeshuu ku dhashay soo dego tukaaliyo ku tuka meeshaan amaakin la barakayso diintay ka mid tahay yacni waa diin la-aan adinka idin haysee halkaasa waxaas ugu qoranay ka soco kaasna marka waxyaalaha noocaasoo kale ah ayaa iska dhooban way meesha waaya meeshaanoo kale asla kitaabkan laftigiisa waxaa ku qoran waxaa la yidhahda maxamed cabdilwahaab yacni kitaabkan la yidhaahdo siyaanat alinsaan can waswasati daxlaan waa kitaab kale asagana limaxamed bashiir asahsawaani ninkaasaa asagana iska leh waxaa macnaha kitaabkan laftigiisa ku qoran in la su'aalay maxamed bin cabdilwahaab qowlka ilaahay walcaadiyaati dabxan suuraddaas qur-aankaa la su'aalay ilaa aakhirkeeda markaasaa waxaa la yidhaahday ma garanaysa kan fiiha min xaqiiqatin sharciyatin wa xaqiiqatin luuqawiya yacni wa xaqiiqatin curfiya yacni sharciga xaqiiqadiisa iyo luuqada xaqiiqadeeda iyo curfiga yacni xaqiiqadiisa iyo maxaa intee shay baa ku dhex jirta oo aayaddan suuraddan laga faa'iidaya baa maxaa cabdiwahaab la su'aalay wuuna garan waayey maxaa cabdiwahaabka ay iimaan yacni ka dhahaan mujadiduddiin waa ninka diinta macnaha cusboonaysiiyey bay yidhaahdaan waa yacni shiiqul islaamkooda wey mawlidka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo yacni xafladeyntiisa intay diideen usbuuc yacni sheekh ayaa babaleeyihiinba oo maalin dhan wiig dhan oo loo yacni ixtifaalo maxaa cabdiwahaabka ay u aaminsan yihiin nebi camal ay u aaminsan yihiin ninkaa isaga ah oo xagga diinta iyo shareecada islaamka markii la yidhaahdana wax uu ka yaqaanay aysan jirin markii runta dhabta loo kaco wey aabbihiisna wuxuu ahaa nin caalima oo sheikha walaalkiisna sidoo kale waan ka hadli doonnaa mar baan insha allahu tacaala siirada maxaa cabdiwahaab aan ka sheekayn doonnaa iyadana laakiin hadda macnaha su-aashaas markii la su-aalay buu leeyahay ninkaan la yidhaahdo saasawaani macnihii su-aashii ayada ahayd buu rabaa marka inuu sii raaco wuxuu leeyahay su-aashaan nebi maxamed iyo asxaabtii iyo taabiciintii iyo taabici iyo khalaf iyo yacni raggan a'immadan lixdaah oo raggan macnaha umahaatu sita la yidhaahdo iyo 4 madhabood midna ma garanayn buu leeyahay maxaa asaga shiiqa laga weydiinaya maba ahanba in macnaha shiiqa yacni la yidhaahdo waxa ma garanayo maxaa yeele shiiqa naga lagulaha uswatun xasanatun fii hadihi saadaat baa ugu sugnaaday kuwaasoo dhan inay ku daydaan ama asaga ha ku daydo macnaha ha u aamino kuwaasuu ku dayanahaya yacni oo dayashaa ugu sugnaatay oo ayagana waxba ma garanayaan oo nebi maxamed xaqiiqa sharciya xaqiiqa yacni curfiya midna ma garanahayo bay aaminsan yihiin waa wax juhalaa waxaasoo dhanna nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wax uu garanayn ma jirin asxaabtuna waxaysan garanayn ma aysan jirin macnaha waxa weeye culummadii iyo dadkii dambe oo intaan yacni diinkii nuxurkiisii soo saaray annagay noo soo saareen waana dadaal ay qabteen intaasna nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa mid aan garanayn ma aysan jirin way marka halkaasna waxa weeye waxay ku liidayaan nebiyullaahi maxamed iyo asxaabtiisii iyo raggii culummada ahaa a'immadii islaamka oo dhan bay ku liidahayaan oo ku baabi'inayaan oo leeyihin waxba ma garanayaan haddii aan soo galno macna kitaabka oo asagana la yidhaahdo kashfu shubahaat limaxamed bin cabdiwahaab kitaabkaas asagana waxaa ku qoran waxa adiguna aad ka yaabtay aad uga sii yaabto kuwii kale kaba sii dara wuxuu fii hada alkitaaba kitaabkan waxaa ku qoran buu yidhi saxiifadda waa boga 6 waxaa ku qoran fahaulaa'i almushrikuun muqiruuna yashhaduun ana allaha huwa alkhaaliqu alraasiq waxdahu laa shariika lah bal ilaaha idinku dhaariye meesha waxaas wax la aamini kara mata wuxuu leeyahay kuwan mushrikiinta waxay aaminsanayeen oo qiraayeen ilaahay inuu khaaliq yahay inuu raasiq yahay inuu aysan u shariig yeelin sidaas ayay aaminsanayeen buu leeyahay dadkaas sidaas bay ahaayeen gaalada mushrikiinta saxiifadda ayadana macnii 10aad waxaa ku qoran ayadana
وإنما يعنون بالإله إله معناه وحي كلا جيدان لغلها ما يعني المشركون في زماننا زمن كنا مشركين تجوكتو وحي كلا جيدان باللفظ سيد معناه ما عرفت مشركين دنبه وحو كتلمامايا وادد كان أهل السنة والجماعة ووجيده معناه وحو ليه قرضها هرقالده oo ilaah macnaheedu hadii alla kuuraya jacaltal aalihata ilaahan waaxidan nabi maxamed markay dhaayaan ilaahyadii oo dhan macnaha hal ilaah miyaad ka dhigtay dadkii noocaas ahayo yaani aaminsanaa inay ilaah sanamyadan ilaah u yihiin oo u sujuudayaan nabi maxamed markuu yiraahday u sujuuda allah raxmaanka ay dhayaan raxmaan maxaa la dhahaa raxmaan muxuu yahay dadkii noocaas ahayo iimaan iyo islaamnimo midna aan lahayn oo ka fog ayuu wuxuu leeyahay waxay caabudi jireen ayagu raqiil inuu sameeyo waxay caabudi jireen oo ilaahay ku magacaabi jireen waa wax kuwan hadda jooga mushrikiinta oo dadka ahlu sunnaha waxaan mushrikiinta waxay ilaah u yaqaano waa sayidka waa ilaaha sayid ninka sayidka macna qofka la sharfo yani sayid waxa weeye yani qofka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam soo madhin ana sayid walad aadam wala fakh aniga waxaan ahay nabiyullaahi aadam wuxuu dhalay iyo yani sayidkoodii baana faana ma aha marka taa sayidnimada sayidka ah bay wixii leeyahay waa la caabudaya sayidnimada marka kaas oo kale weeyuu leeyahay marka lafdu sayid hada wax lagu mucaarado ma aragno oo diinta loo yani looga baxayo ويا صحيفة هذا تمادد أيضا صدن يشناد وحكو قرن إعلام وحأوجاتا أن الشرك الأولين كوي هراء الشرك جودا يقال لماذا أخفوا وحكفوا وضعي من شرك أهل زماننا الزمن كنا نكون جوج شرك جودا بأمرين لبا أمر بين وقف ضده الأولى أحدهما متكود أن الأولين كوي هراء قال ذي هراء لا يشركون قال ذي هراء وما يشركون جرين بالله إلهي ولا يدعون الملائكة ملائكة ما يسنبري جرين والأولياء أولياء ما يسنبري جرين أوثانا سنميان ما يسنبري جرين مع الله إلهي معيسى ما يسنبري جرين إلا في الرقاية حلقة برواقضة ما هالأولى تا غضب ويلولها قرضها هد الجوكتا بكحنة تا هرت الغضب ويوقف في عين الأولى وثاني مد اللبات أن الأولين كوي هراء مشركين تها يدعون مع الله إلهي معيسى وحيبري جرين أناسا ضد مقربين للدوية عند الله إلى أكتس أدوي إما أنبياء أو أنبياء إنيهين وإما أولياء إنيهين وإما ملائكة إنيهين داد كاسي بري جيرين وداد ونعكسان الأولها مركا لبادها قضب بهورتر أوقفي عين الأولها مشركين هذا جوك ورجي خوف أساق لفتكيس لبادها قضب وهذا سوقع طيبا بأسكوهر إبانا يب كي هوري يكادن ببلادك بأسوفيري نعقلي هذا اللي معناه وحيد إلهي أمشي رجال جرين أو إلهي معني غير كيس ما يسعبد جرين أو ملائكة ما يعبد جرين أنبياء ما يسعبد جرين سماء ما يسعبد جرين إلا حلقة برواقة ماهن ما يعبد جرين يحل برواقة يعبد جرين هرتو ركوب وأرتو هذا القلدان وقربان وميل وجيد هذا جرين هرتو مية ميتك كلامنا بالفيري هذا أنا وحيد هذا قلب كلا هذا حوي وحي عبد جرينه يعني إلهي أدوان جيران وداد مقربينه إلهي أكتس أدوه سيدا أنبياء إيا أولياء إيا ملائكته وكلا كواس أي بري جيران يعني إلهي كواس أدو بي بري جيران هذا مركب محاي وكلا دوان داي حقيسة وكلا وضع وكلا وضع مالهاني داد كان إسلام كاو مسلمين تاو والروايين وقال لما يكون حكميان انت سوي وحكلا ما هو صحيفة أيضا الصدن يتضواد وحقوقنا وأهل زمننا زمن كنجا أهل كيسة ومعناها وادتك مسلمين تا يدعون وحي ويرانها ينلقلها أناس أجيدك أربي واكنا كي هو وحا أجيدك وقلها انت أنوي بلدي يسمر وأهل زماننا دتك زمن كنجا أهل كيسة يدعون أناس وحي بريها ينددوي ومن أفسق الناس دتك كو فاسق سنلقلها فاسقين فاسقين يعني وهو بريها ينبيره والذين يدعونهم كو ويرها كواس إني بريانا هم الذين كو يحلون وحللها لهم أياga الفجور فاجر نمذ من الزنا زنا يحللها وسرقة إني وحلحظي وحللها يعني ويرها وترك صلاة والله تجوي وغير ذلك انتاس غير كده أي ويرها حلقة محا يدنا كوجاتي ضدك المسلمين تاع أو مؤمنين تاع إنه هرته قال أي كحكمية إنه قاليهن مد اللبات ضدك وناكسنا أما أولياء إلهي أما أنبياء يود إلا ضد كان وح يعني إلهي أكتيسة يعني كوي ديسنا يان أما وتوصلها يان وضدك وناكسنا ضدك وناكسنا إنه فاسقين كان أقوي رهينا إنه يهي مد يعني هدي الكورة يهي زنا يحمان يكفر يعني هدي الكورة يسرقوا حديثان بلاي بقى هو أقوي إنه يه أنت أصوات كاركتها ماشي أنا كقرأت كتاب كود
هدان كوسو عليو وكشف الشبهات وي لمحمد بن عبد الوهاب كتاب كاس وي وانا صحيفه اما بوغا صدنيه تضباد waxaas caqiidada xun oo qurunka ah ka buuxda marka waaya wuxuu halkan ka leeyahay asagana fata'ammal hadhihi shubhatu wa hiya qawluhum tukaffiruna min almuslimina unasan yashhaduna an la ilaha illa allah wa yasumun wuxuu yiraahday dadka marka dadka waxa weey shubhay kugu soo aroorin doonaan wuxuu la hadlayaa dadkooda juhaladaha oo wahaabiyada iyo wix la midka ah buu la hadlay marka wuxuu yiraahday niyaho فتأمل بل فيري هذه شبهة شبهدان بل اسك فيري بو يراهد وهي قولهم وقول كودو تكفرون ورنميه waxaad ku gaalnimo xugminaysaan min almuslimiina muslimiinta xaqooda unaasan dad baad ku gaalnimo xugminaysaan yashhaduna qiraaya an la ilaha ilaha kale inuusan jirin illa allah ilaah mooye ilaah kale inuusan jirin kuwa qiraaya baad ku gaalnimo xugminaysaan wayasuumuuna soomahay ayaa ku gaalnimo xugminaysaan inay xalkiina muxuu yahay bay leeyihiin luqulaha bay leeyihiin waxaas ayay marka ujeedka ay u socdaan maxay tahay dadkaan aan ku gaalnimo xugminayno waa gaala sax u leeyahay ee shubhadaas ha dhageysanino dhag jalaq ha u siin way ujeedka u wada way markaas waaya saxiifada hadda waxa timaada 49 waa kashfu shubahaat li Muhammad bin Abdul Wahhab oo imo ayadan walil mushrikiina gaalada waxay leeyihiin lugulaha mushrikiinta iyo ujeedaan waa annaka bas waa dadka muslimiinta ah oo muuminiinta ahlus sunnah wal jamaa dadkaas waxay uga jeedaan mushrikiina walil mushrikiina mushrikiinta waxa u sugnaaday shuhbatun ukhra shuhba kale oo baa u sugnaato yaquluuna waxay leeyihiin anna nabiga ankara wuxuu ku inkiray ala usama bin zayd buu wuxuu ku inkiray qatl man qaala qofkii yiraahdo dilkiisa la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah tawxiidka qofkii ku dhawaaqa in la dilay nabi maxamed uu ku inkiray usama shubhadaasna way ku keenin doonaan ee ka tag buu leeyahay shubhadaas waxa ma warkooda waxba kama jiraan gaalada waa la leeynayaa waa gaale marka waxa uu rabaa inuu laayo waa dadka muslimiinta oo dhigooda la banaysay oo aad arki kartaan xilliga hadda la joogo zamanka hadda la joogo wadamada islaamka meelaan ahayn dhig kama socdo wadamada islaamka meelaan ahayn dad ku leyn maayaan wadada islaamka waxaan ahayn qarax kama wadaan meel oo dawlad la'aan waxaan ahayna iskuma makmakayaan waa dad ahlu sharci moogsoonta meelahaas un bay dib ka qarabtaan oo dhibka ay ka wadaan halkaas waa aysan marka hadana saxiifada waxa timaada kontana wa muraad haula aljuhalati buyida ayagii hadana dadkii muslimiinta abu waliba ku dhagan yahay wa muraad haula aljuhala kuwaas jaahiliinta ah muraadka iyo danta ay leeyihiin waxa weeye anna man qaalaha qofka yiraahda la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah qofki yiraahda la yukfar inaan lagu gaalnimo xugminayn way jaahilnimadooda bal qof la ilaaha illa allah dha laguma gaalnimo xugmin karo bay ku leeyihiin waa lagu gaalnimo xugmin karaa buu leeyahay fiir wuxuu ولا يقتل لمن ديلهايو لمن ديل كره قف توحيد يعني لا اله الا الله ده بي كليهين waxba kama jiraan waa la dilahaya buu qaba waasaas way walaw faala haba sameeyay ma faala wuxuu raba ha sameeyay qofka lama dil kara lama gaalmo xugmin karo bay kuleeyihiin buu kuleeyahay dadka aan juhalada ah fayuqaalu marka waxa loo leeyahay lihaula aljuhalati juhaladas waxa loo leeyahay macnaha macluumun waxa macnaha oo cad oo jirta oo la og yahay anna rasuulku qaatal yuhuud inuu la dirro laay wasabaahum inuu qafaashay yani haweenkoodii caruurtina inuu qafaashay wahum yaquluuna ayagoo dhahay la ilaaha illa allah ayagoo la ilaaha illa allah ku qowlahay oo ku hadlahay ayagoo macna nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam yuhuud la dirray oo laayay oo caruurtoodii haweenkoodana soo qaatay bal kidbiga iyo iftiraha inta leeg bal arka nabi maxamed ay ku iftiroonayaan ku been amaan من كذب علي متعمدا فجزاؤه فليتبوأ مقعده من النار برسولك عليه الصلاه والسلام قفك اني igu been abuurta oo yani been abuurasho aan geed loogu gaban igu been abuurta yani hadii alla kuuray had diyaarsado meeshii uu ka fariisan lahaa cadaabta way waa been cad Soomaha been cad ma tahay oo nabi maxamed calayhi salaatu wasallam lagu been abuuraa dadka islaamka oo dhiigooda la raba in la banaysto ma tahay macnaha tawxiid kasta ku dhawaaq waxba kama jiraan waa isaga dhahay وحسوستان كل نينك حسوسا فؤاد شنقلي نمن كان الشباب هو امتحانك امده بالله ووهابيه ابناء الوهابيه وهي عروت وهابيه وهي كل جود واسكو ميده wuxuu yiri oo qoran oo duuban oo la og yahay haduu yiraahdo oo tawxiidsadu yiraahdo 1000 marra kun jeer haduu la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah yiraahdo wadilayna biir wadilayna bal nin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam usama oo nin
la dagaalamahayo oo dadkii laayay oo yacni seeftii asxaabtii la laayay oo asaga xataa dhibaateeyey oo markii uu seefta saaray tawxiidsaday oo uu dilay baa nebi maxamed ku canaantay oo la og yahay oo haddana ay inkirayaan waa xadiiskii hadda ay inkirayaan oo saxiixaaba inkirayaan asagoo uu ku canaantay nebiga uu yidhi xaggee ka geli doontaa tawxiidka kelimadan tawxiidka xaggee ka gelaysa xaggee ka geli doontaa laa ilaaha illa allah maxaa qiyaamaha marka tii ayada ahayd baa la rabaa in la baabi'iyo oo la tirtiro oo la yidhaahdo tawxiidka waxba kuu sheegi maayo asagoo tawxiidsanaya qoorta ka gooway sidaas bay aaminsan yihiin marka ka soco yuusan waqtiga naga dhumina saxiifadda 38 iyo 39 labada saxiifad waxaa ku qoran waidaa qaaluu hadday dhahaan naxnu anagu nashhadu waxaan qiraynaa an laa ilaaha ilaah kale inuusan jiro ila allahu ilaahay mooye wa anna maxamedan nabiyullaahi maxamed rasuulullahi rasuulka ilaahay inuu yahay oo wasadaqa alqur'aana qur-aanka uu rumeeyo ونصدق وان رميننا القرآن كوان رميننا ونؤمن وان رميننا بالبعث إن قيامها ليس صوص هاري دونان رميننا ونصلي وان كسلنا ونبي يعني ونصلي وان تكننا ونصوم وزومنا فكيف تجعلوننا سيدين نوغا دغيسان مثل هؤلاء قال الله سو كلا سيدين نوغا دغيسان هدي كدهان فالجواب جوابته واسكا سهلنتahay wuxuu yiraahday anna rajulku idaa sadaqa rasuulka haduu rumeeyo في شيء هدو كرمي وكذبه وكبيني في شيء فهو كافر قال وي لا يدخل في الإسلام نبدا مقلع الأولى وكهده ولقي يجهلك والله ماذا ويقول لي قف إسلامه هدو توحيدك أقرأ وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أقرأ وقرآنك أرمي وبعثك أرمي وتكذا وصوم oo hadii alla ku reeyahay nabiyullaahi maxamed oo wax ku rumeey nabiyullaahi maxamedna wax ku beeniyo waa gaal oo jannada ma galaayo oo nabi maxamed intaas sameeyay ugu beeninaya waxaan adinka ahayn adinku way on kaliya wax nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadigiisa la yimid beeninaya waxaan adinka ahayn ma jiraan yaa kale wax beeniye marka hadii qof aad gaalnimo ku xugminaysa adigu isku xugmi saa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiraahday yani umirta an uqaatil naas hatta yashhadu an laa ilaaha illa allah وأني رسول الله أو صلاة يتكذان أي صومان حتى أنت سميان عسموا مني دماءهم دي قوذي معنيه مال قوذي أولاد قوذي معنيه واحد وإيجا آمن بيجي لانه هذا باب كاسودان أنا هو كفوا جانا هي بس ويقف كمسلم ومعصومه ولا كفوا جانا هي وديجي معصوم الدم ولا الدين هي قفك النوع عاسونه محمد إله إلا بحق الإسلام هذا سدع ذي اللي يقانا قفك هدود تارك للدين هو تارك جماعة ويه إن محسنكي قفك kala dilay saddexdaas ma ahane inta kale macna cid loo dhawaanayo ama wax la gaarsiinayo ma laha nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam sidaas buu yiri adiguna waxaad leedahay tawxiisada kun jeer tawxiisada waa la dilaya marka yaa wax beeniye horta nabi maxamed beeniye ma adiga mise dadka islaamka hadda wax ka sheegay marka isma maqashide waxa la yiri dhagahaagu hays maqlaan afkii dhagahaagu isma maqlaan hays gaaraan taasna sidaas ayaan ka leenahay way haddaan kitaabkan soo aadna asagana la yiraahdo tadhiirul i'tiqaad lisanani كتاب كان صديق أسجنا أني مانه في هذا الكتاب كان صحيفة صدن إيا شناد إلا صحيفة صدن إلى حد وحكوسجن يجب وحواجبه يعني أن يدعى إن لو غير هؤلاء كواس أو مشركين ذا يوجد جدا وعدد السنة والجماعة مشركين تسئلة توبة إن لو غير وإلهي أوصل نابت إن الله وقاله إلهي أوصل نقدان يرجع إلى توحيد والتوحيد كأوصل نقدان إلا يرهدوا توحيد كأوصل لابتوه فمن رجع قفكي سو نقض او منهم ايغا كميدو توحيدك اسو نقض حقنا دمه ديغيسا وحوي ولا سغايا ولا دينايا وماله مالكيسي ودراريه عرورتيسي اولادي حاسسكيسي وخيسن ولا دينايا ومن أسر قفك لكن أرنكاس اسكا جيرو كشبك حسدا او حوشان عقيده حمده iyo gaalnimadu ku jiro ku sii jira lagu laha abaha allah minhu ilaahi wa banay ma ahwaha wuxuu banay li rasuulkiisa meel mushrikiina gaalada xaqooda wuxuu ga banay wixii mushrikiinta looga banay xaqooda ayaa looga banay kuwaano macnaheedu maxay tahay gabdhahoodana waa la qaxaysanaya oo waa la iska wangciiseenaya hadii la kurin sidaas uu yiraahdo kitaab tawxiid asagan imo limaxamed bin abdul wahhab kitaabkaas asagan imo كتاب كان هدا سنة تماد وحا كوغن وفي هذا الكتاب صحيفة صدنات وحا كوسوغن أساقنا وحيالا لياب لأنبا مرة اسكا أركيساي وإن هذه المسألة مسألة ذا ومسألة التوحيد ويقول لا إله إلا الله وي مسألة توحيدك لا يعرفونها قرن مهيان أكثر صحابة البضن كذا قرن مهيان إله إذن كل شيء صحابة رسول الله يعني ميانا قرنين
tawxiidkii lala soo diray rasuulka calayhi salaatu wasalaam. rasuulku wuxuu joogay maka yacni 13 sano ayuu tawxiidka waday wey, uu tawxiidka akhrinaya 13 sano tawxiidkaas uu faafinaya intuusan madiina gaarin, madiinatul munawara. marka tawxiidkii noocaas ahaa bay waxay leeyihiin asxaabu rasuulillahi garan maayaan. saxiifadda waxaa timaadaa ayadana 56 waxaa timaadaa taas wax ka yaab badan ayaa meeshaan ku arki doontaa. kownu alambiyaai yaxtaajuuna litanbiihi calaa fadli laa ilaaha ila allah lagu laha. subxaana allah subxaana allah subxaana allah. wuxuu yidhaahday kownu lambiyaai ambiyada ayaa waxay u baahan yihiin, yaxtaajuuna waxay u baahan yihiin kownu lambiyaa ambiyada ahaanshahooda weeyo, yaxtaajuuna ay u baahan yihin litanbiihi in lagu baraarujiye calaa fadli laa ilaaha ila allah. laa ilaaha ilaa kalimatu tawxiid macnaheeda in lagu baraarujiye ambiyadii baaba u baahan lagu laha. oo yaa ku baraarujinaya? ma maxamed bin cabdiwahaab iyo wahaabiyada ku baraarujinaysa? waa subxaana allah, wax lala yaaba wey. caqiidaday aaminsan yihiin waa kuwaasaa haddee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo diinkii lala soo diray inuusan waxba ka garanayn diinkii, oo asaga laftigiisu wax badan u baahan yahay. halkaasba iimaankooduba halkaas u maraya. marka dad israa'iiliyiin ah oo aan islaamnimoba haysanin inay yihiin, oo diinka dasiise iyo quran ay ka soo buuxsheen, horta sidaas u ogowo waxa waa kutubta ay wataane. marka waaya waxaa timaadaa saxiifadda ayadana waxaa timaadaa 133 wax diinka nagaan yacni la yaqaano ka wuduuxi shamsi isaga cad bay waxay ku tilmaami doonaan waxaad la yaabtay oo shirki ah. meeshaan bal fiiri ana haadihi 3 buu yidhaahday, 3 hadda uu 3 soo wada wey. 3 alruqya tufidda wey, in la isku tufo oo qofka macnihi hadduu jiran yahay ama aad ku tuftid ama magaciisiga alruqya tufidda, iyo yacni watawliyatu macnihi ka welil yeelashadoo nikaax iyo guurka waxa ku saabsan arrinta ahayd wey. iyo watamaa'ima yacni tamiimada iyo macni xirsiga iyo baalkan xirsiga oo la isku qoro yacni inta qur-aanka iyo tabaruga maarata loogu xiro ama qofka xanuunka magaciisiga loogu xiro. 3dooda kullaha lagulaha 3 kulligoodba min ashirki shirkiga ayay ka mid yihiino غير من غير الاستثناء لغلها لا سو ريب ما بلا سو كلا ريبايب 3 waa shirki lagulaha. subxaan allah. waad garanaysaa ninkii saxaabiga markuu 30 ariga camal uu ku soo qaatay yani tufida uu ku soo tufay ninkii gaalka weynaa oo yacni soo marti gelin waayey, markii uu ku tufay oo weliba uu ku akhriyey yani faataxa, yani suuradan yani suuratul faataxa uu ku akhriyey. nebi maxamed caleyh asxaabtuna ay kala jabeen markaa isla joogan, qayb ay dhaheen war xoolaha noo qayba, qaybna ay dhaheen war nebi maxamed arrintan nooma sheegin anagu naga daa. nebi maxamed markii loo yimid muxuu yidhahda war xoolaha qayb iga sii yidhahda, qayb iga sii. waa xoola tuf lagu soo qaatay. marka xoolihii tuf lagu soo qaatay waa shirki weeye, lamana kala qaadayo. hadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa xoolo tuf lagu soo qaaday qayb ka qaatay, haye ma shirki buu ku jiraa? nacuudu billaah. waxa aad sheegaysaan diin ma ahane, cidda aad ku dhuminaysaan unbay dhib haysaa. marka iska ilaaliya ikhwat alciza. arrintaas waa arrimaha dhibka badan oo yacni hadda taagan wey. kitaabka waxaa timaadaa fatxulmajiid calaa kitaabi tawxiid oo lixafiid maxamed bin cabdiwahaab. kitaabkan fatxulmajiid meel walba ayay gollan ku wadan jiraan, waa garanaysaa kaas. kitaabkaasu hadda waayahan markii ceebtiisii iyo bannaanka ahlu sunnata waljamaca ay soo dhigeen waa ka carareen, ma aqaan waayahan meel ay ku wadaan, laakiin waa akhrin jireen, aad bay u akhrin jireen. وفي هذا الكتاب كتاب كان صحيفة اللباتنات فصار أولئك المشركون مشركين كاس وحي أهذا لها أعلم بمعنى هذه الكلمة كلمة ذان كوا وأقون أقولها لها ولا إله إلا الله بوحي كوا أقوم بذنه لها من أكثر المتأخرين هذه الأمة أمة المحمدية المتأخرين تذا أي بكا أقوم بذنه لا سيما أهل العلم لها ذاتك أهل العلم يعني كمسي جيران منهم وحكم إذا لها الذين لهم دراية في ذلك في بعض الأحكام وعلم الكلام. أحكام ذاتك أقوم تقوله يعني علم الكلام كوارجع معناها دي اللي كنا عقيدة نظام كاس رجع يعني إلهي وكو دين تان وكو قوية رجع صدام وحي كليه وحي كجرنا يعني توحيد كمالهم، لكن قال ذي هور أي جرناش وحاس قرنا أي كب الدين يعني كتاب كودان أو فتح المجيد كان اللي يرادو. وحاسدوا كل عقيدة وهابية آمن زين صحيفة الصدني سديدات وحي آمن زين وما أجهل محاك الجاهل لما بدن لها عباد القبور قبور تكون عابد لها بحالهم حال كذا محاك الجاهل لما بدن وما أعظم محاك يعني كوينا بدن ما وقعوا فيه وحي كل عينهم من الشرك شركي المنافي ديداي لكلمة الإخلاص إخلاص كلمة ذوي. فإن مشرك العرب عربت المشركين تذ ونحوهم وحي لمت كأيو جحدوا وحي ديدين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لفظا هو معنى
lafdi macna ahaan bay u diideen wa haula almushrikiin mushrikiintan hadda ana aqarru waa mushrikiintii uga jeedaan waa ahlu sunnati wal jamaa uga jeedaan way mushrikuuna hada kuwan mushrikiinta haula almushrikuun kuwan mushrikiinta aqarru biha way qireeno lafdan bas la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah lafdi ahaan bay u dhaheen way ku dhawaaqeen kaliya way wajhaduha way diideen macna yani tawxiidka macnihiisana waa diideen la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah sallallahu waxaas way waxay aaminsan yihiin waabiyo waxaas ayay diin kaaga dhigayaan waxaas ay ummadda islaamka ku gumaadayaan waa i'tiqaadka xunka ah way waxay dadku ku laayaan ku qarxiyaan oo ku dilaan oo maalba macnaha ay tafjiirka iyo balaayada ay ku sameeyaan ay dadku halaagaan maxaa yiraahdaa wax ka jaahilnimo badan malahan lagu lahaa kuwa ahlu qubuurka ah oo yani xaaladooda wax ka yani shirkigooda يعني هدي الله كورن يعني واحد يكون عيان أو شركة كلمة إخلاص كذا يعني أنفينيس معناها كلمة معناها إسلام لماذا إخلاص كأنه لا إيمان كلمة واحد أنفينها أي لا إيمانها هي وحنا كسي قيمة بدن أو كجا أقوم بدن أو كجا وناكس نقولها مشركين تي بعيا المشركين تي أيها واحد ديدن توحيد كي لفظ هان يمعناها بيوديدن لكن كون مشركين تا لفظي بيكون واقعين لكن معناه وديد هل كان إيه كتاب في هران هذا سوق جد بينه بل فير اللفتيود ماشي يسكور قمن ماشي معدهن لفظا ومعنى ويديدين هداية أنا معدهن وحي رميسيهن إلهي ما شريك يلجرن قال هذا مشركين تا إلهي وحيد جيران إلهي يعني هدي لكم وحي عبد جيران مال هل كان وحي كليهن لفظا ومعنى بي يعني يديدين بكله مركا أيق اللفتيود iyo kutubtooda iyo aqeedadooda aqeedo marka baadal marka ay tahay dhinac walba iska burinaysaa way iska warqabaan waa aqeedo daba gedisan oo aad Israa'iiliyiin ah saxiifada 39 hadaan soo gal wabihada arrinkan tabayana wax cadaaday lagu lahaa anna mushrikii ahli hadhihi zaman kan oo kana ehelkiisa mushrikiintooda iyo gaaladooda macnaha yani ajhalu billahi ilaahi kuwa macni kaga jaahilsan way توحيد كيس من مشرك العرب ويوما قبلهم مشركين عرب يقال ذي كسي هوريسي كو هد الجوغ الزمن كان جوغ او مشركين تا وعددك اهل صناع وعلاله كو هذا مشركين تا يعني وحكا جاهل سنه يعني حق التوحيد كم بجرام كو صهراء الدين تحوغا وغرونا لها مشركين تهراء وغرونا لكن كو وحكا جاهل سن مال المشركين هذا الجوغ تو اهل السنه والجماعه ولا جيدو وياهي وفتح المجيد كوي صحيفدنا وكوسو شيء ومدة صدني سقالة وأي وحصوق شاء صحيفة صدني سقالات أيضا صوقل سلا أيضا وي صحيفة أنا وحكورة وهؤلاء يعني متأخرون كواس متأخرين تا جهلوا وحيك جاهلين ودتك يعني الدين كان سوق جارسي أوجو متأخرين إلى علماء الإسلام كعوي متقدمين ومتأخرين سلفي خلف بإلا كالآية متأخرين تيردن وحلا لو متأخرين هابوا هذا كل جاهيا فيري وعو كل جدونا وهؤلاء المتأخرون تصدمانتو جهلوا وحيك جاهل نقدين معنى لا إله إلا الله لا إله إلا معنيه سيك جاهل نقدين يعني وقلبوا ويقديين حقيقة المعنى معناه حقيقة يسيبي قديين إلى معنى توحيد الربوبية معناها توحيد الربوبية بيقديين وهو القدرة أود ويو على الاختراع يعني اختراع معنى أود بوي حق ذي دنبلشي وحلم ذوي فأثبتوا مركب ويسوجين ما نفته عقيدة أو توحيد كي وحي عنه أي أنفسي بيسوجين أو وحي معناه أي توري سي بيسوجين أو دهن واحد وأثبتوا ويسوجين ما نفته لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحي أي أنفسي بيسوجين أو من الشرك شركي وحي شركي وأنفسي بأيو سوجينه وشركي بيكون جراوي وأنكروا وإنكرين ما أثبتته وحي أي سكتي لا إله إلا وحي سكتي من الإخلاص إخلاص الله من إخلاص العبادة عبادة الله برحيله لله تعالى إلهي إنه لو برحيله يعني جهلا منهم والجاهل لما أي حق ذكاء هاتي بانا أرتاس كلفتي بولي وعلماء إسلامك وأن دين كان كجد ينين ودين كده معناه وحويه جيل بجيل بأسود ديوايه يعني سلف كي متأخرين تي دتك دم علماء بأسود ديوان دتك أهل الدين كأها أو دن متأخرين هذا هبل كمان علماء دن متأخرين توحيدين وعي قرنا توحيد ملا مركيات توحيد يقان محمد عبد الوهاب الترجورن آمية معناه يعني الدين يقان
oo asagaan uga dayanaa mise wiilashan yararka ah oo meelaha dadka gowgowracaya ama dadka qarxinayo islaamka baabi'inayo yacni dhahaya alxamdulilah hebel shahaadadu dalbaday oo inay dadka islaamka laayaan miyaan dhahnaa marka diin uga dayanaynaa oo ayagii baa naftoodaba haligaya kallaa oo bal macnaa arrintaas wax jirahaya ma ahan waana wax lala yaabo wey haddaan halkaa uga soo baxno yacni arrinkaas isla kitaabkan laftigiisa 516 waxaa ku qoran waa ku xiiqnay baadilkoodaan ku xiiqnay waxaa ku qoran dheh saxiifadda 516 waxaa ku qoran ajmaca ahlu sunnadu waxay ku ijmaaceen ana allaha tacaala ilaahay mustawun calaa carshi midku istawooday weeye carshigiisa bidaatihi daatadiisu ugu istawooday cala alxaqiiqati si dhabahu ugu istawooday laa cala almajaasi majaas maaha waa war cad hadde oo aan daha aan saarnayn ma aragtaa ilaahay carshiguu fadhiyaa oo xaqiiqa u fadhiyaa ma aragta horta ilaahay inuu jiha u sameeyeen hadda inay waxa ay caabudahayaan ilaah uusan ahayn uu sanam yahay horta hore ma cadda mayda caddaat maxaa yeelay ilaahay carshiga waa makhluuq ilaahay uu abuurayna ilaahay uma baahna subxaanahu watacaala waa ka deeqtoon yahay subxaanahu watacaala waxaysan oqoonin caqiidada insha allahu tacaala caqiidada saxdaana waan akhrin doonaa meeshaanaan ka akhrin doonaa waxa ahlu sunnatu waljamaaca ay aaminsan yihiinna waa akhrin doonaa waxaad ogaan doontaa in caqiidada ahlu sunna iyo caqiidada wahaabiyada bawnun oo u dhexeeyo wax weyn farqi ah oo u dhexeeyo marka adigu qofkaagan dhagaystaha oo yacni hadiyaalka ama daawadaha oo walaalka ah adigay kula gudboon tahay naftaada sidaad u badbaadsan lahayd iyo waddada xaqa aad mar lahayd way caddaha waddadu way saxan tahay wa ana haadaa siraatii mustaqiima fattabicuuhu baa ilaa yidhi waddadaydu waatan toosane raaca ee waddooyinka wadagoodirkaa raacina iska ilaasha marka waddadu way caddahay wey macnihii marka inaad ogaatid sidaas weeyaan haddaa is leedahay soo ma ahan macnihii masaajidan faraha badan iyo raggaan ordahayo jeena qaarsan macnihi haddii oo la kooran yahay orodka iyo xafxafta iyo masaajidda iyo magaciisa iyo madaarista iyo magaciisa waxaan business bay noqotay waxaanu business bay ka dhigteen masaajid in la furto waa u business waa business caadi nin business wata miyaa adigu macnaha waxa weeye businesskii biil buu noqday nidaam buu noqday masaajid hala dhiso lacag dadka looga aruursho business buu noqday dhaqaala lagu raadsadaa dhaqaala lagu waxeeyaa ilaahay dartiisnimadiis waa ka baxday waxaad arkaysaa dad islaam oo baahan iyo masaajid la leeyahay masaajid hala dhiso masaajid iyo ummad baahan kee yani in la dhisaa muqdisho oo kale soomaaliya oo kale imis masjidaa ku taal intaasoo masjidaa ku taal magaalada ay rabaan markaas masjidka inay ka dhisaan qof islaam oo baahan soo taagan masaajid ma dhisi karti oo maxaa ku dhisaysaa dadka baahidooda dadkii oo baahan oo islaam ah oo dhibaataysan dadkii markii dhibaataysan ama ujeedo kale laga leeyahay waxa masaajidka in la dhiso jaamica lagu helo islaamaha daabka looga furto dhaqaalo lagu aruursado intaas le weeye ma ahana diin ma ahna hafaftaas yaa laga qaaday ee diinka waxa weeye waa midka daraasada ah oo xilqada loo fadhiyo oo culummadu aysan waxba kaaga qaadayn oo ilaahay dartiisa ka oo istustuska aan ahayn oo arka aanan ahayn oo maalin walba wadaad wax sheegay wuxuu sheegay iyo shalay wuxuu ku jawaabay iyo su-aashiisa maanta ay iskhilaafsan tahay dadka noocaasa diin ma hayaan marka walaalayaalow waqtigana waa inka dhameeyey insha allahu tacaala galabta waxaan halkaa kusoo koobi doonaa shubhooyinkoodii iyo baadilkii ay aaminsanaayeen nimankan yacni mubtadacada ah khawaarijta ah ee wahaabiyada ah ee diinkii baabi'iyey dadkiina baabi'iyey dhulkii islaamkana baabi'iyey maantana dacfi geliyey islaamka xaqiiqatan xilliga zamanka hadda la joogo islaamka xilli uu ka taag daran yahay male waxa sababtaa kalifayna waxaa weeye waa ayaga sabab aanan ahayn oo ay galabsatayna ma jirto bal ciraaq fiiri qaraxa iyo dhibka iyo dagaal ka socdo bal syriya fiiri dhibka ka socdo bal yaman fiiri bal haddii alla kuurayahay meesha arabta caalamka ka fiiri soomaaliya fiiri meel walba waxay ka wadaan qarax iyo dhibaato iyo dil iyo ba-iyo hoog ma rabaan nabad yar ma rabaan in dadku noolaadaan ma rabaan in dadku israacaan ma rabaan in dadku horumar gaaraan ma rabaan in gaalada la iska dhiciya ma rabaan been bay kuu sheegayaan gaalaan la diriraynaa gaalo lama diriraana every day fiiri dadka la qarxiyo ma gaal baa mise waa muslim adiguba qof islaam aa tahay caqli leh dadka qaraxa lagu dilo ma muslim baa mise waa gaalo waa dad wada muslim ah oo tawxiidsanaya intaasna way laayaan marka
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إلهي أطوبت كينا وحي هرؤها نمنكاس وآمن سنة قلبت كدب يعني اللي إنكو أركن وهابيو عقيدة سحنتها وقرن كابي آمن سيهين إله كفوقان شاهس بآمن سيهين صنم بيعابدان وهذا أنا سوى شيء إنه يعني آمن سيهين إلهي إنتو ساس أصعده جاء إنه لبضل الوضع صارته وحي آمن سيهين وصنم وي mushrikiintii sanam bay dhulka ku caabudi jireen kuwaana sanam bay korgeeyeen cirgeeyeen marka sidaas weeyaan ilaahay laga cabsado wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh